deegaanka Qow oo qiyaastii magaalada Boosaaso u jirta 22 kiiloomitir ayaa waxaa ku soo caariyay xayawaanka loo yaqaan nibiriga. sida la sheegay nibirigan soo caariyay ayaa ah nooc dhal ah oo xajmigiisu aad u yar yahay. nibiriga ayaa ah noolaha ugu weyn xayawaanada badda ku jira. ma aha markii ugu horeysay oo xeebta ku soo caariyo xayawaanka nibiriga, balse kan maanta soo caariya ayaa ah mid xajmigiisu aad uga yar yahay nibiriyadii horey ugu soo caariyi jiray xeebta. waxaana taa loo aaneynayaa inay dhaawac u geysteen nibirigan aadka u yar maraakiibta jariifka ee ku jira badda Soomaaliya iyo xeebaha Puntland. waa kan samafale Maxamed Yuusuf Tigey oo booqday goobta uu ku soo caariyay nibirigu. waxa uuna ka sheekeynayaa nibirigan. waxaan ku suganahay xeebta Bandarsiyaala. halkan waa makhluuq ka mid ah makhluuqyada Ilaahay abuuray midka ugu weyn. waa nibiri waa 12 mitir dhererkiisu, waana sida la sheegay waa nibiri yar oo dhal ah. nibirada ugu waaweyn ilaa 40 mitir 30 mitir ayaa dhererkoodu gaaraa. waa nimcooyinka Ilaahay uu baddeena ku abuuray. halkan waxaa dhibaato ku jirtay waa maraakiibta jariifka oo dhaawac u geysatay kadibna sidaasuu badda ugu soo caariyey. deegaanka dhibaato ku yahay, khayraadkeena dhibaato ku yahay, waana nimco ka mid ah nimcooyinka Ilaahay la siiyey. waa aragtaa inta uu leeyahay waa nibiri. qofkii nibiri afkiisa ka maqli jiray baro maanta waxaan ku baraynaa nibiriga dadkiisa intay laagtahay. waa aragtaa inuu geedku leeyahay. waa aragtaa xayawaankan maaha markii ugu horeysay ee lagu arko xeebta. waxa uuna dhowr jeer hore ku soo caariyay xeebta magaalada Boosaaso. Cabdilaahi Cabdinuur Yuusuf, Cabdilaahi Bakayle, Garowe.